Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadayaal meel kastoo aad kaga sugan tihiin daafaha dunida, waa Buulimoog Media ood uga barateen in idiin soo gudbiyo wararka iyo warbixinada ka dhaca dunida. Waa maalinimo Jimco ah 5 bishii 6/2020. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa habka online-ka kaga qayb galay shirweynihii caalamiga ahaa, iyo waxaan kaloo idiin haynaa allah u naxariistay fanaankii weynaa Cabdi Tahliil Warsame ee ku geeriyooday magaalada Muqdisho habeenkii xalay ahaa. waxaan kaloo idiin haynaa maantay oo aas qaran loo sameeyey ninkii midoobaa ee ku dhintay cariga Mareykanka George Floyd. fadlan hadday tahay markii kuugu horreysana soo booqata janalka subscribe saar gambaleelkana furo si aad noola socotid. haddaba madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu habka online-ka kaga qayb galay shirkii caalamiga ahaa ee uu furay ra-iisul wasaaraha dalka Britain Johnson Johnson oo lagaga hadlayay la dagaalanka caabuqa COVID-19 kaasoo ay dhammaan dunidu iska kaashanayso. shirweynahaas oo lagaga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa dawada fasiin ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ka muujiyay qaabka ay Soomaaliya ula tacaalayso cudurka COVID-19 ulana jaan qaadi doonto caalamka intiisa kale. waxaanu kaloo idiin haynaa daawadayaal allah u naxariistay fanaankii caanka ahaa Cabdi Tahliil Warsame ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu ku geeriyooday magaalada Muqdisho. allah u naxariistay fanaanka aaskiisii waxaa ka hadlay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xayir Maareeye, isaga oo yiri dowladdu waa ay garab istaagi doontaa qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday allah u naxariistay fanaan Cabdi Tahliil Warsame ma moogaan doonto ayuu yiri dowladda, isaga oo u tacsideeyay dhammaan Soomaalida iyo qaas ahaan qoyskii uu ka geeriyooday fanaanka allah u naxariistay oo muddooyinkii dambe ku xanuunsanaa magaalada Muqdisho. waxaanu kaloo idiin haynaa daawadayaal George Floyd ayaa meydkiisii maantay waxaa loo sameeyey aas qaran, isaga oo bishii aynu soo dhaafnay dabayaaqadeedii ninkaas uu nin cadana oo boolisa uu si xun ugu dilay magaalada Minneapolis. haddaba aaskan loo sameeyay George Floyd ayaa waxaa kasoo qayb galay qoyskii uu ka geeriyooday George Floyd iyo dhammaan shucuubta ku nooleed magaalada Minneapolis, isaga oo si hab maamuuseed qaran loo aasayay. dhanka kale Soomaalida ku dhaqan gobolka Minneapolis ayaa iyagu haweenka Soomaalida ee ku nool gobolkaasi si gaar iyagoo isu soo abaabulay waxa ay ka qaadayeen Soomaalidu habka ay caanka ku tahay amaba loo yaqaano buraanburka ayaa dumarkaasi waxa ay ku muujinayeen shucuubtooda amaba ay ku taageerayeen sida ay uga xun yihiin George Floyd qaabka foosha xumaa ee loo dilay, iyaga oo buraanbur ku cabirayay oo halkaasna ka qaadayay buraanbur kala duwan oo ay ku taageerayaan guud ahaan shucuubta madow ee ku nool dalka Mareykanka. ayaa ninkan George Floyd waxa ay uga damqadeen si aad iyo aad u adag, iyaga oo maalmihii lasoo dhaafay Mareykanka oo idil ay ka socdeen mudaharaadyo aan kala go'in. dhinaca kale waxaanu idiin haynaa daawadayaal madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra-iisul wasaaraha dalka Liibiya ayaa waxa ay shir ku wada qabteen dalka Turkiga. ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Erdogan ayaa waxa ay si adag uga hadleen dagaalada ka socda Liibiya. Erdogan ayaa waxa uu yiri marnaba ma noqonayso Liibiya kaligeed, mar walba waanu garab taaganahay, isaga oo yiri awal dagaalka waxaanu ka wadnay beriga oo qura, haddana waxaan ku dareynaa inaanu ilaalino badda ku dheerarsan Liibiya oo aanu ka goyno ayuu yiri wax allaale wixii qalab iyo adeeg u soo mari lahaa Generaal Haftar, isaga oo yiri waan sii wadi doonaa dagaalada aanu kula jirnay ilaa ay Liibiya dowladda la aqoonsan yahay cagaheeda si buuxda ugu istaagto. dhanka kalena maalinnimadii shalay markii ay ciidamada Liibiya ay ka qabsadeen Generaal Haftar garoonkii weynaa ee magaalada Tripoli ayaa waxa ay ka heleen hanti aad u fara badan oo ah hub noocyadiisa kala duwan, rasaas, miinooyin iyo jiibabka gacanta laga rido, iyaga oo ka helay dhulka hoostiisa meel ahayd oo uu ku aasay amaba ay ku aasteen ciidamada taabacsanaa Generaal Haftar.
hubkan faraha badan oo ay gacanta ku dhigeen ayaa wuxuu u soo hooyayaa dowladda la aqoonsan yahay arrin guul ah. Dhanka kale waxaanu idiin haynaa magaalada Atlanta ayaa waxaa lagu arkayay nin u labisan qaabka Batman oo filimada lagu yaqaan, tan oo ah markii ay mudaaharaadyo socdeen habeennimo lagu dhex arkay magaalada. waa Boolimoog Media, tan iyo kulanti dambe oo wanaagsan.